wardudublow meesha doonta joog meel haddii lagu dhibtoodo waa laga guuraa waa laga agbadashaa dowladdan iyo ehladeeda waa ku dhibtoonnay dowladdaa ka horeyday dadka dhan isku sii ula tacaamuli jirtay laakiin duduble lid kuma ahayn ganacsigaa lagu dilaa wadooyinkaa lagu dilaa beerahoodaa lagu dilaa shirkadaha lagu dilaa maxaa nagu gooniya ma hayno qabiil kale oo Soomaaliyeed oo sida ummadda u kala duwan tahay inta loo soo dilo wasaaradda gaashaandhigga ku dhamaada ma hayno dowladda hore oo dowladdan ka horeyday dadka waa dili jirtay hadday rabto waa usxabaali jirtay waa aasi jirtay laakiin wax dubil ku gooriyo ma sameyn jirin laakiin dowladdana waxaan ka helnay ayu fanni oo dubil u sameysay inay disho haddoo baabuur wato inay disho haddoo beer joog inay disho haddoo shirkad ka shaqeeyo inay disho maxaa nagu gooniya beesha Maxamuud Hiraab ee Duduble ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku yeelatay kulan ay cadaalad ugu raadinayaan rag ka soo jeeda beesha oo siyaabo kala duwan loogu dilay Muqdisho iyo qaar kamid ah gobolada dalka kuwaas oo qayb ka ahaa marxuum Cabdulaahi Maxamed Guuleed Sheekh Foodey kulanka ayaa waxa ka soo qayb galay waxgaradka beesha xildhibaano beesha ku matala maamulka Galmudug dhalinyarada haweenka iyo qaybaha kale ee beesha waxaana dhinacyada ka mid ahaa ugaas Saciid Maxamed Carab gudoomiye ku-xigeenka golaha hogaaminta beesha Habargidir ahna gudoomiyaha guddiga beesha Maxamuud Hiraab ee Duduble Cabdulaahi Cabdulle Wehli dadkii kale ee ka soo qayb galay kulanka ayaa waxay sheegeen in beesha Maxamuud Hiraab ee Duduble ay dawladdu si gaar ah u bartilmaameedsatay isla markaana ay tirsanayaan cadaalad darro xooggan qaar ka mid ah meedadka dadkii laga dilay beesha ayaa ay tilmaameen in aan la aasi doonin ilaa ay ka helaan cadaalad meeshaan waxaan maanta u joognaa cabasho aan ka cabanayno militariga Soomaaliya aan ka cabanaynaa dhibaatooyin in badan ba nagu waday dadka nagii laynaya aan waxba laga qabanayn ayaan ka cabanaynaa bishaan hadda la soo dhaafay dad aad u fara badan ayaa militariga Soomaaliya naga laayay dadkii inay soo qabtaan laayana waa diideen arintaas ayaan ka cabanaynaa wayna ogyihiin saraakiisha sare iyo kuwa dhexe iyo kuwa hoose intuba way ogyihiin taliye ku-xigeenkii baa loo geeyey taliyihii lugtaa loo geeyey janannadii oo dhammaa war ka haya in gadaal dadka laynaya gadaal la marsado waxaa weeye dhibaato oo maaragta dalka ku soo noqonayso weyn waxaan u sheegaynaa maxkamadda ciidamada iyo taliyaha xoogga iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee amniga in naloo soo qabto dadkan laayey hadda midii u dambayday waa ninka hadda 27 bisha lagu dilay degmada Marka ee shirkadda Hormuud shaqaalaheeda kamid ahaa arintaas raggii laayay waa la yaqaanaa waa ciid ururka degan Marka ayaa dilay raggii magacadoodii baa la hayaa taliyayaashana way og yihiin waxaa diiday inuu keeno sida naloo sheegay taliyihii ururka oo lagu magacaabo Farey ninkaas ayaa hor taagan baa leeyahay dadkaas in sharciga la keeno waxaan ka codsanaynaa dhammaan madaxda dawladda in ninkaas sharciga la hor keeno raggaas ragga leeyahay sharciga la hor keeno in dadkaasi waxaa lagu kala adag yahay oo maanta lagu kala dambeeyo dawlad la isugu yahay waa sharciga wardudublow meesha doonta joog meel haddii lagu dhibtoodo waa laga guuraa waa laga agbadashaa dowladdan iyo ehladeeda waa ku dhibtoonnay dowladdaa ka horeyday dadka dhan isku sii ula tacaamuli jirtay laakiin duduble lid kuma ahayn ganacsigaa lagu dilaa wadooyinkaa lagu dilaa beerahoodaa lagu dilaa shirkadaha lagu dilaa maxaa nagu gooniya ma hayno qabiil kale oo Soomaaliyeed oo sida ummadda u kala duwan tahay inta loo soo dilo wasaaradda gaashaandhigga ku dhamaada ma hayno dowladda hore oo dowladdan ka horeyday dadka waa dili jirtay hadday rabto waa usxabaali jirtay waa aasi jirtay laakiin wax dubil ku gooriyo ma sameyn jirin laakiin dowladdana waxaan ka helnay ayu fanni oo dubil u sameysay inay disho haddoo baabuur wato inay disho haddoo beer joog inay disho haddoo shirkad ka shaqeeyo inay disho maxaa nagu gooniya taas su'aashaas waxaa laga rabaa inuu dubil wax iska dhaho aniga waxaan soo jeedinaa marka maadaama aan oday microphone loo dhiibaa waa ku dhibtoona dowladdan iyo meeshaan hadda ay dowladdaanu joogto war aan iska warsanno meeshaa ku dhibtooto waa laga agbadashaa dowladdan iyo taliskeeda iyo meeshay maamusho aan iska warsanno waa soo dhaweynaa 7 dhacdo intay hadda ka sheekeeyaan odayaashii ay meesha ka sheegeen wax xaqiiqda dhammaantood xaqiiqda ku fadhiya weeyaan oo wax dawladdu wada ogtahay weeye xildhibaanadii baa soo arkay
wasiiradii baa soo arkay dowladdii aan uga camarnay ilaa wakhtigaan wax qabta lama hayo midka maanta fariijiteedka ku jira haddaysan dowladdu soo qaban nimankii dilay markii ugu horeysay lugta ka jebiyey tii labaadna maxaa tiraad ku dhiibi tiray oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel la leeyahay oo aynu u naqaano ka sheegi mayno media hadda ka sheegi mayno nimankaas laakiin waynu naqaanaa saraakiishii hogaaminayanu naqaanaa ciddii ka dambaydaynu naqaanaa nin sargaala oo 14 Oktoobar lagu sheego maxaa ciidanka lagu sheego hogaaminaya ayaa arrintaas inta dhacdo hadda ka dhacda shabeellaha asigaa mas-uulka ahaa asigaan horjoog ka ahaa walaalay dowladda waxaan leenahay annagu dowladda mucaarad kuma aynu ihin annagu dowladda maxaa tira kama soo hor jeedno dadkanagii iyo shacabkanagii ay iyagana shacabka u ahaay annaguna shacabkooda aynu nahayn odayaashooda ahayn baa hortooda lagu laynaya waxna laga qaban maayo waxaan doonaynaa in wax laga qabto waxaynu doonaynaa in cadaaladda la hor keeno cid qof walba waxaa deeqa cadaaladdaa deeqda cadaaladda haddaan laala helina waxaa la helayaa waa cadaalad daro maxaa ka imaanaya aakhiriya adduunba waa lagu seegayaa aakhirana waa lagu seegayaa adduunyadana waa lagu seegayaa hadalka inaan badiya ma rabo raalli baad iga ahaanaysaan dowladdoy wax ka qabta saraakiisha iyo ciidanka laynaya shacabka aad dowladda u tihiin oo aad xukuntaan laynaya wax ka qabta cadaaladaan u baahanahay cadaalad waxaan uga baahanahay militarigaas dilay walaalkay cabdulaahi maxamed guuleed in la soo qabto oo la hor keeno maxkamadda oo la mariyo waxa diinta islaamka qabto annagoo la hor keeni waayo dowladna ma naqaan dadna ma naqaan waxaan naqaanaa meydka halkaas noogu jira walaalkay u ahaa allah u naxariisto nin islaam u ahaa nimankii soo dilay haddii cadaaladda la hor keeni waayo wixii ka dhici lahaa way ka dhici doonaan insha allah bismillaahi kariim ilaahay maxkamadna maalin kale oo aan wax badanaan maqlay dowladda soomaaliya cadaalad ha fidido wax badanaan maqlay cadaalad ay fididana ma aanan arkin muddo dheeraan dowladda soomaaliya dad ay dembiye ka gashay arkay militarigu ka galay askartaasi ka gashay ciidanka soomaaliya ka galay wax laga qabto ma aanan arag haddii cabdulaahi maxamed guuleed cadaalad waayo cadaalad waa la heli doonaa insha allah bismillaahi kariim cadaaladna xagga ilaahay taala ma dhaafi karno annagu sarkaal darajadii dowladdu siiday sita waa qiimeeyahaynaa dowladdan ku qiimeeyahaynaa laakiin annaga waxnama dheera saraakiil cadaaladahoo dowladdu darajada u xirtana waa leenna cadaaladdan qiimeeyahaynaa cadaaladaan rabnaa dowladdu inay wax ka qabataan rabnaa saraakiishaas lagu dirayda waxaa ku xigay oo ka horeeyey ninkii shabeellaha hoose beertiisa isagoo jooga lagu dilay baabuurka lagu daba xiray lagu jiiday saraakiilaa isku aadiday dhammaan ciidamada dalka waa aan ammaanaynaa kuwa gaarkaa oo xun maahayna saraakiisha waa ammaanaynaa kuwa xun oo sidaas oo kalea maahayna kuwa sidaas oo kalea waxaan leenahay dalka iyo dowladnimadaba waa burburayaan dowladdu ha naga qabato haddaysan naga qabanna annagaa gacmaha naga isaga qabayna insha allahu tacaalaa mana bahalka la yidhahdo haddaan dowlad weyno ma weeyahayno dadnimadannada ilaahay waxaan ka baryaynaa sida gabdhuhu iyo ragguba u sheegeen xaqa ninkaas inuu ilaahay soo saalna horta ilaahay ka baryaynaa ilaahay maanta waxaan ka baryaynaa xaqaas ninka muslimka oo sida xaqdarradaa lagu dilay xaqiisa ilaahay inuu noo fududeeyo oo noo soo dedejiyo ilaahayaan ka baryaynaa horta ilaahay noo fududeeyo shaatiga qaranka beelaan nahay muslima maxamuud hiraaba la yaqaano ilaahay aan abuurtay oo badbaado ka rabnaa muslimkana dhib uma qabno dowlad dhib uma qabno cuqdad ma qabno ciidamada waxaa ugu sarreeya madaxweynaha shaatiga ciidamada qaranka ninkaa noogala dilay oo meydkiisa noo yaallo waxaan ka codsanaynaa annagoo beesha maxamuud hiraaba
in ninkii ninkaa dilay oo gacan ku dhiiglahahay oo la yaqaano oo jooga oo taliyihiisii joogo ku-xigeenkiisii joogo taliyo unugtii joogo ninkaasaan rabnaa in naloo soo qabto xaqiisi aan helno. inta badan bilooyinkii dambe waxaa kordhay cadaalad raadinta ay ehelka dhibanayaasha u raadinayaan dadkii laga dilay, iyadoo qaar ka mid ah talaagadaha yaala hosbitaalada magaalada Muqdisho ay ka buuxsameen meedadka loo raadinayo cadaaladda.